sure. Richard Burton oo ah nin sahmiye ah oo u dhashay dalka Ingiriiska kana mid ahaa raggii soo maray dhulka Soomaaliya sanadkii 1854 ilaa 1855 ayaa wuxuu Soomaalida ku tilmaamay dad dhaadheer oo dhuuban, orod badan, isla weyn, hawlkar ah, geesiyaal ah, una adkaysta dhibaatooyinka nolosha adag ee deegaankooda ka jira. Dhinaca kale, Sir John Kirka oo gumaysigii Ingiriiska u fadhiyay jasiiradda Zanzibar ee dhulweynaha dalka Tansaaniya socdaal ku yimid geyiga Soomaaliya sanadkii 1970 ayaa isaguna wuxuu yiri sidan: waxa socdaal ku tagay dhulka Soomaaliyeed waxana waxyaabaha aan la yaabay ka mid ah dadka Soomaalidu kama hebaystaan Ingiriiska iyo cidii kale ajaanib ah ee timaada dhulkooda. Si gaar ah arrimahaas isagoo uga hadlaya ayaa wuxuu sheegay in uu aad ula yaabay oday reer miyi ah oo Soomaaliyeed oo awrkiisa wata ayaan ag maray kadib markaasuu sanka qabsaday odaygii. kadib nin turjumaan oo ila socda ayaan weydiiyay sababta uu sanka u qabsaday odaygu iyo waxa uu yiri. turjumaankii wuxuu igu yiri ninka Soomaaliga wuxuu leeyahay gaalkan saanta cad ee uraya ayaa sanka ka qabsaday. kadib Sir John Kirka oo ahaa nin gumayste ah oo dadka Afrikaanka ah ee xilligaas ku hoos jiray gumaysigiisa ay aad uga baqan jireen ama uga cabsanayeen ayaa u qaadan waayay habdhaqanka quursiga leh ee uu ka arkay odayga Soomaali. wuxuuna dadka Soomaalida ku tilmaamay dad isla weyn oo aan wax cabsi ah qabin, aadna u geesiyaal ah. fadlan haddii aad ka heshay barnaamij